بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها أهل خير كأه اجعل إني دقيستان كلامك إلهي سبحانه وتعالى، جعلني دقيستان كلامك النبي عليه الصلاة والسلام. سو هذا بيشكيga waxaan idinkugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa inuu idinku sugo oo kelimada ugu dambayso adduunkaad kaga tegaysaan ilaahay uu ka dhigo laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah. dhammaanteen annagii caruurteenaba ilaahay ducadaasa noo aqbalo, aamiin. suurad waxaa jirto dadka laga yaabo badankooda inay ihmaaliyaan, oo ihmaal macnaheedu waxaa loola jeedaa aysan waqti gelin meesha dadka laga yaabo waxyaalo badan waqti inay geliyaan. qofka caqliga badan haddii loo sheego meesha uu degan yahay in laga kaxaynayo muddo kadib ama muddo yar kadib, loona sheego meesha uu degi doono, laakiin meesha dambe uu degi doono oo weligiis aan laga kaxaynayn, caqligu wuxuu keenayaa meeshaas dambe inaad dhismo aad ka samaysato, wax walba oo ku anfacayo aad ku noolaan karto o dhan meeshaas inaad ka samaysato. waxaa lagu arkaya adoo markasta alaab wato meesha wax u kaxaysanaya, alaabta geynayo oo wax ka dhisanayo oo shaqaalo maaragtay samaysanayo oo gurigaas khaaska ah aad dhisanaysid oo wax walba laga helayo. caqliga saasuu keenayo. adduunka inaan ka tegin waa naloo sheegay. shalay 2 qof ayaan caasnay anoo qabriga jooga oo labadaas qof dul jooga oo u ducaynayno, salaadii janaasada ku tukanayno. qofaa isoo wacay, sheekh xasan degdegaan kugu baahannahay, masaajidka maad joogtaa? mayaan dhahay masaajidka ma joogay, meel kale aan joogaa, waa ka fogahay. waxay dhaheen ma kugu imaan karnaa? waxaan dhahay qabrigaan joogaa. markaas waxay dhaheen inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun. gabadheenna oo hurdo aan ku ogeyn ma soo kicin, 13 jir waaye, hadday dhimatay. marka usbuucan inta dhamanaysana dhallinyaraa u badan. hal oday ayaa ku jiray, sheekh maxamed macalin, oday la yiraahdo ilaah u naxariisto, intii dhimatana ilaah u wada naxariisto. suurad waxaa jirto aan tafsiirkeeda akhrinaynaa oo tafsiirkii aan waday ka mid ahaa suurat al-ikhlaas oo fadaa'isheedaan kasoo sheekeeyey. maanta waxaan kusoo khatimayaa xadiis. waxaa jiro inkastoo xadiiska la yiraahdo waa daciif, laakiin imaam albani wuxuu yiri marka laisku geegeeyo darajatul xasan uu soo gaarsiiyey. fadaa'ishana axaadiista qaarkood oo laga qaadan karaa. xadiiskaasi nabigu wuxuu yiri calayhi salaam asxaabta qofkii akhriya 10 jeer suuratul ikhlaas, macnaha 10 jeer khatima, waxaa loola jeedaa 10 jeer dhameeya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نبي وحيري بنى الله له قصرا في الجنة. قري أو إلهي ورسايو وجنة ورسايو. لقيس الله بدن هذا كو قري إله رسايو إنجنير بني آدم أحمد رسايو. ما أنت ما أقتهي إنجنير هذا أبو قالسا قريه أبو قالسا لسان أدونك عفوا أو حرب لقى هلايو عليه إنجنير كاسي أبوري عليه مخلوقات كودن أو وح سمين كرا أبوري الله ساكو رساي وكو طلباتنا قري كاسي أدونك لقومات رساي سابتا أدونك ودمانا يا ميل عن دمانينا آخرة لقومات رساي وتوانجر أدفريستو أدحضو أدخرسو قل هو الله أحد. محاوى معناها سورة دمرك. انت aan ka gud macnaha suurada nabiga markuu u sheegay asxaabtii qofkii 10 jeer akhriyo suuradan guri jannada loogu dhisaa. markuu dhahay sayyidina Umar meesha fadhiyay wuxuu dhahay yaa rasuulallah hadday saas tahay anagana intaas waa ka badinaynaa. way 10 jeerba haddii hal guri la ii dhisaayo ani guriyo badan aan rabaaye afkayga sheekooyinka kale iyo waxaas inaan ku yareeyo
أنا وبضينا يا أنت سنكسي بضينا يا مركز على رسولك حوري الله أكثر وأطيب إلهي أيا بضن معناها إلهي أيا كبضن حلولج إذا إلهي وحو بحنايو وح كبضن وحيستا أنا هداد كمان جر هذا هالجوري الجوري سنة الجوري سايا لواتن هداد هذا لبو جوري الجوري سايا برك إلهي أنت سو إن كبضن أيها يا إلهي سجا وناكسن ساسع معنا سورة معنا هذا قابن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إلهي مجلسان كبلابنا يا الرحمن الله نحرستي سبلارن وعد كستجاري سجالي مسلم أنت أدون كلا جوجو الرحيم الله نحرستي سخاصة وحي خاص كتهاي مؤمنين تمانة قيامها وإيجو إلهي سبحانه وتعالى لسوه شيء أدونك وأعماشه الصالحات كأفرح كبطي إلهي هر إيماناي وإلهي أنحرسناي وجند أوجيناي الله الرحيم كل وأمر النبي قال الأمر عليه الصلاة والسلام شاكذا نوحي كتمد قالا رسولك أتمد مشركين أيا أتمد وحدهن إلهي إذا نوحي كسميسين ولا يقانا لقحان إيو أما لقحان قالها هذا أنا أذيك إلهي محو كسميسين مركز رسولك عليه السلام وحاكو سودكت سورة دان إلها أجوابي قول كله مركب وإساقوا ده إلهي سبحانه وتعالى وحبه أجوابي أنا أجوابايو كري أمركي قاضو قل أمر لسي رسولك سيدا محو الشيء هو إله إساقا قاوي دين إنسان الله إله واي أحد أو حلقة سدح بقول اللي حذن معها سيدا كريستن كإشاقان سدح إلهي معها سيدا كوكا لا إشاقان لبي إله معها كو لبي إله أميسان آيات جرو انت صدر مع إلهي سبحانه وتعالى أحد لذلك علماء وحيد دهان كلمة أحد سر بضان أياكو قرصان that's why سورة مركا إلهي وحو جعل يحي وحو يحي وجعل يحي إن لغو سفاي إلهي وحو يحي وحل إلهي أود له كليسا أود له كليسا حلقة كليسا إله كليسا العابدايا كليسا حلويدي سنايا كليسا لتلصارنايا كليسا الهسقلايا إساقا wax walba oo makhluuqaad oo dhan keligiisay hoos yimaadaan kii maaragtay ku faraxsan inuu caabudo iyo kaan ku faraxsanaynba way wada caabudayaan gaalkaa ujeedid xitaa hooskiisa waa ilaahi subxana wa tacala wuxuu wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdi wax walbo ilaahay abuuroo dhan ilaahay subxaana wa tacaala ay tusbiixsanayaan gaalkaasi diidan ilaahay harkiisa hooskiisa إله تصبيح صنايا ولكن لا تفقهون تصبيحهم إله وحر إذن كما قرأ نيسان أنا ما نقانه قابك وتصبيح صنايا لكن إله أنه شيء قالك إلهي ديدا هركيسة إله تصبيح صنايا إذا قابا كلين ماذا إلهي واسرته نلاشر إنا فهمته لذلك إلهي يا أحد مركع هذا إلهي أتوجيسد إلهي وحده نكسينايا هو إساق الله إلهي أحد وأميت آياتك حقته الله الصمد الله إلهي الصمد وكي وحلوي دي سنايا الصمد حواي الذي يقصد إليه الحوائج مركا دان لا كي دانت إساقا فليناي وفيناي وحقيسة كلي لغد أمينكا مركا دانا بضانا كاغا حران بني آدم كي مخلوقاتك مركا مخلوقاتك سينات كورو وريكتا معاه أسبابت إنات قادة ولو باهاية oo ah dantaasi wixii lagu gaari karo adduuna inaad samayso markaa samayso kadib adoon laaluush bixin adoon wax kala samaynin ilaahay markaas albaabkiisa aadaysa maxaad leedahay yaa samad ducadaas akhrinaysaa markaas yaa samad waa xaaji gude ilaahay subxaana wa tacala markaas xaajadaadu gudaya allahu samad lam yalid ilaahay subxaana wa tacaala caruur ma lahan lam yalid waxbaa waxba ma dhalin waa been إن اللي يرهده جيسس أما عيسى وويلك إلهي وعزير وويلك إلهي أنت لا شيء قبل إلهي أحضر ما دلين بقى عرور أن ما بالله هذا يسيك ما عرور أن ما بالله إلهي سبحانه وتعالى ولم يولد يستغر لما دلين إلهي سبحانه وتعالى وهي هدي اعتماده إلهي إنه وحد علي يستغر لدلي وحيا صعونا ماشي إلهي يسأل علي نقونيسا لكن إلهي سبحانه وتعالى وحير وكليس إلهي وجري isagaa abuuray wax walba khaaliq waaye anaga waxaan ahay makhluuqaad ilaahana abuuray marka allahu khaaliqu kulli shay wax walbo jiroo dhan waxaa rabtaa raadinaysid oo dadka gacantooda ay ku jiraan ama dowladda gacantooda ay ku jiraan
ama hay-ado gacantooda ay ku jiraan oo aad raadinaysid gacanta ilaahay ku jiraan, ad waxaa lagaa rabaa oo keliya albaabka ilaahay inaad garaacdo. markaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walam yuulad, ilaahay lama dhalin. aayadda ugu dambaysa walam yakun uma sugnaanin lahu ilaahay subxaana wa tacaala kufuwan mathiilan axad oo la mid ah. axad ilaahay la mid ah adduunka ma jiro. ilaahay subxaana wa tacaala wax aad barbardhigayso adduunka ma jiro. awooddiisa keliguu ku yahay, magacyadiisu keliguu ku yahay, sifooyinkiisa keliguu ku yahay. intaas markaad fahamto suuraddaasi oo aad ku celceliso maalintii, ilaaha ku jeclaanayo. soo marta ilahay inuu ku jeclaado, ilaahay qofkuu jeclaado ma dayaco, ilaahay cidduu jeclaado ma dhibo. haddii imtixaan ilaahay uu kugu rido adoo suuraddan ku celcelinayo, imtixaankaas culimmadu waxay u bixiyeen ibtilaa'u rifca, imtixaan oo kor lagugu qaadayo waayo, ba ah wax lagugu dhibaayo. sababtaa qofka ilaahay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahay maa yafcalu allaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum. ilaahay dhibkiina wax uu ku falaayo ma lahan haddii ilaahay aad ku shukrisaan. shukrinta ilaahay waxa waaye ilaahay inaad ammaanto, wuxuu yahay aad ku ammaanto. suuradda fiiri inta magac ilaahay ku jirto: allah, alraxmaan, alraxiim, axad, alaxad, alsamad. intaasoo dhan waa magacyada ilaahay subxaana wa tacaala. 5 ayaa lagu soo ururiyey. nin ka mid asxaabta nabiga calai salaam safar rasuulka calai salaam uu u diray, isagaa hogaaminayay, ninkaasaa hogaamiye idiin ah. intuu safarka ku hogaaminayoo dhan markii salaada uu tujinayo suurad kasta uu akhriyo wuxuu ugu dambaysiinayay suuradda al-ikhlaas. way yaabeen, su-aal ma weydiinin. markii safarka laga soo noqday nabigii calai salaam u yimaadeen, yaa rasuulallah, ninkaan noomana sheegin suurad kasta markuu akhriyo salaada marka la tukanayo, suuradda labaad markuu akhriyo mar kasta wuxuu kusoo khatimaa al-ikhlaas. maxaa siroo ku jira arrinkaas? wuxuu dhahay rasuulka, maxaa u weydiin weysan isaga? way u tageen, way weydiiyeen. wuxuu yidhi sifaadka ilaahay oo ku jira suuradda 5 magacyo ilaahay iyo sifooyinkooda ku jira, jaceyl aan u qabaan ku celceliyaa weyli. rasuulku u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam, sheekadii u sheegeen nabigii. markaasaa wuxuu yidhi ku laabta, waxaad tidhahdaan fiiri ninkaasi darajada u gaaray, jaceylka suuradda aad u qabto darteeda adna ilaaha ku jeclaaday. ma rabta ilaah inuu ku jeclaado, suurat al-ikhlaas akhri. rasuulka calai salaam xadiis kale wuxuu yidhi qofkii 3 jeer akhriya suurat al-ikhlaas waxay la mid tahay isagoo qur-aanka dhan uu akhriyey. marka halkan waxaa laga fahmaya wuxuu dhahay thuluth, macnaa suuraddan markuu ka sheekeynaya wuxuu yidhi tacdilu thuluth al-qur'aan, waxay u dhigantahay qur-aanka 3 markii loo qaybiyo hal meel. tafsiirka culamada qaarkood waxay leeyihiin tafsiirka loola jeeday qur-aanka 3 qaybood ka hadlaa: qawaaniinta lagu dhaqmo axkaamta ah, 2 qisas oo taariikhda dadka in la barto oo lagu cibro qaato, iyo 3 caqiidada islaamka. marka caqiidada suuraddan oo dhan waa suuratu alcaqiida, suuratu tawxiid. ilaahana waafajiyo akhrinteeda, ku dhaqankeeda waxaa loola jeedaa in ilaahay keliya la hoos galo oo bini aadamka oo dhan laga xoroobo iyo makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala. waa ku dhaqanka suuradda. faafinteedana waxaa waaye sida oo hadda aa u dhegaysanaysid qof kalaa rabo baahi u qaba inuu u dhegaysto, adna inaad faafiso ajraad ka heli. qofkaas marka loo dhiso qasri, marka loo dhiso jannada, adna waa laguu dhisi. firinta faa'iida aa helaysid intii qofkaas uu sii faafinayo in la mid ah ajarkeedu way kuu socon. marka sheergaraynaysa khayrka. dadka qaarkood waxay sheergareeyaan waxyaalo ilaahay uu xarimay, heesaya sheergareeyaan, muusiga sheergareeyaan, waxyaalahaas ilaahay uu xarimay markay sheergaraynayaan dembi suu ugu socdo, adna markaad sheergarayso khayrka, khayr ayaa kuu socdo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.